kulankan maanta wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwe Khadiija Maxamed Diiriye ay la qaadatay qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed ayaa waxaa ka qayb galay xildhibaan Ubax Tahliil Warsame oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya, gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed, gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir iyo qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed. ujeedka kulankan maanta ayaa waxa uu ahaa sidii loo mideyn lahaa dhammaan haweenka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo sidii si wadajir ah uga wada qayb qaadan lahaayeen xuska 8 Maarso oo ku beegan maalinta haweenweynaha adduunka. Farxiye Maxamed Kheyr oo ah gudoomiyaha ururka gabdhaha saxafiyiinta Soomaaliyeed ee SWJ oo ka mid ah dadkii kulankan maanta ka soo qayb galay ayaa sheegtay inay ku faraxsan tahay kulankan maanta ay la qaateen wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha. Hadaan nahay ururka gabdhaha saxafiyiinta Soomaaliyeed kulankan maanta oo ay maamooyinka ay ku yeelanayaan wasaaradda haweenka aad ayaan ugu faraxsanahay oo looga munaaqashoonayo dabcan 8 Maarso oo maalinta haweenweynaha Soomaaliyeed maalintaas la xusi doono dabcan qaabkii si wadajir ah haweenka Soomaaliyeed guud ahaanba maalintaas munaasabadaas ay ka qayb qaadan lahaayeen iyadoo aynu ogsoonahay mudooyinkii aynu soo dhaafnay ama munaasabadahaasiba in siyaabo kala duwan haweenka Soomaaliyeed ay u kala xusi jireen, laakiin maanta waxa farxad ah in kulanka looga hadlo qaabkii guud ahaanba haweenka Soomaaliyeed maalintaas ay u xusi lahaayeen. wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwe Khadiija Maxamed Diiriye oo kulanka marka uu soo dhamaaday kadib la hadashay warbaahinta qaranka ayaa ka hadashay qodobadii kulankan maanta ka soo baxay. waxaana looga hadlayay diiradda lagu saarayay qaabkii ay u wada shaqayn lahaayeen ugana wada tashan lahaayeen howlahan baaxadda weyn la wasaaradda horyaalla haweenka bulshada rayidka iyo wasaaradda. waxaana ka mid ah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir, ururada kale haweenka aan dawliga ahayn iyo kuwa dawliga ah intaba aan isku daro dhammaan wasaaradii. waxaan rabnaa qaabkii wada shaqayn loo abuuri lahaa, qaabkii qorshayaashan horyaalla aan uga wada qayb qaadan lahayn, qaabkii contributionkooda u gelin lahaayeen haweenka siyaasad qaran in dalkan loo dejiyo. ma aha kuwa gobolka Banaadir gobolada kale la tashigaas wuu gaari doonaa ee dalka cid walba oo haweenka Soomaaliyeed ah ayuuna quseeyaa oo geyga Soomaaliyeed ku nool iyo wasaaradooda iyo guud ahaan dawladda xukuumadda guud ahaan dawladda Soomaaliyeed. sidoo kale wasiirka haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in ka wasaaradahan ay ka warqabi doonaan guud ahaanba haweenka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan isla markaana wada tashay la sameyn doonaan. wasaaraddan waxay diyaar u tahay gabar walba gurigeeda iyo goob kasta oo joogto in intii karaankeena ah aan uga warqabno iskuna dhaafsano wixii wada shaqayn iyo xoog annaga aan hayno haddii Allaha awoodda leh ogolaado. marka baaqeenu waa midnimo magac haweenka Soomaaliyeed inaan ku wada qabstaasna waxaan ku muujin doonaa haddii Allaha awoodda leh ogolaado. waa ku wada ballanay in fursadaha kale iyo waqtiyada kale soo socda ayaan soo bandhigi doonaa qorshayaasha aan ugu talagalnay gaar loogu talagalay iyo guud ahaan loogu talagalay bal inaan maalinta haweenka adduunka ka bilowno muujinta midnimadeena haddii Ilaahay yira. wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa wada qorshe lagu mideynayo isla markaana lagu horumarinayo guud ahaanba haweenka Soomaaliyeed. Ibraahim Gudle Isxaaq, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.